hadalka intii sii badnayd waxaa xusay ee ahamiyadda lahayd guddoomiyaha iyo wasiirka marka hadda waynu soo urursanaynaa. shirkani wuxuu daaran yahay, waxaan u malaynayaa muddo hadda laga joogo week in ka badan ayaanu halkan ku kulmaynay oo kula kulmaynay wasaaradaha kala duwan ee gacanta ku haya howlo masiiriya oo kuwaasoo saameyn kula dib u eegista dastuurka Soomaaliya. walaalayaal waxaynu ka dharagsannahay dastuurka Soomaaliyeed qabiil qoraalkiisii u horreeyey in la dhamaystiray 2012. maantana waxaynu ku jirnaa 2019 inta sano u dhaxaysa wad garan kartaan. dadka Soomaaliyeed intaa waxay inaga sugayeen in go'aan laga gaaro su'aalo kooban oo masiiri ah oo markaa dastuurka ka saari lahaa kumeel gaar oo ka dhigi lahaa mid waara oo ay ku dhaqanto dowladda iyo dadkuba. dadyowga ka dhul sugayay dhammaystirka dastuurka waxaa ka mid oo uguna mudnaa bulshaweynta ballaaran ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka Soomaaliya. in maqaamkeeda si hubanti ah hal mar meel la isula dhigo. dadkaasi waa dad ku nool duruufo adag oo amni darro, iyadoo sidaa tahay bay haddana dowladdii martigeliyaan. inta badan waddadii baa laga xidhayaa, amni darraa dhacaysa, culaysyo u gaara ayay ku nool yihiin. marka waajibna saaran weeye in su-aasha ah jawaabteedu ay soo dhowaato si loo helo. marka autonomy maamulku uu helo wuxuu helayaa administrative autonomy, xag maamul, xag dhaqaale iyo xag xuquuqeed. taasi waxay wanaajinaysaa oo kobcinaysaa dowlad wanaagga. marka xulashooyinka kala duwan ee suurtogeli kara waxay noo soo bandhigi doonaa howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha oo inala wadaagaya hababka ugu habboon ee adduun weynuhu uu u maareeyey maqaamka caasimadahooda iyo xaaladaha inaga inagu geedaan sidii loo eegi lahaa. abwaanka weyn ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa toddobaatameeyadii u gabiyey magaalada Muqdisho xamar. waxyaabihii uu ku xusay marka gabaygiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi xidigtii bahdeeda iyo xubnaheeda kala maqan u ahayd xasuustee sumadooda xaynkiiyo shanta gees ku xidhan tahay. xuduntii dalkaygaay, xaruntii dadkaygaay buu leeyahay. waxay ku tilmaamaysaa magaalo madaxdu inay xambaarsan tahay emotions fara badan ama shucuur fara badan. waa astaantii qarannimada. arrimaha diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa Washington maxay arrintaa ka tiri ama London maxay ka tiri. magaalo madaxdu waxay u dhigantaa dalkii oo kale. arrimaha qarannimada marka laga hadlayana waa ta hadda Hadraawi halkan uu ku xusayo oo dadkii Soomaaliyeed ee kala maqnaa ee kala baahsanaa ee taariikhdii aad aragteen soo maray ayay waxay u tahay guuleeyahay xuduntii isku haynaysay isu keenaysay. marka laba aragtiyood baynu rabnaa inaynu ku qeexno oo ku qiimayno maqaamka magaalada Muqdisho. mid waxa weeye xuquuqda dadweynaha degan ee ku dhaqan say u heli lahayn political and economic rights labadaba, xuquuq siyaasadeed iyo mid dhaqaale. tan kale waxa weeye Muqdisho sidii ay u lahaan lahayd muuqaal heer qaran ah oo Soomaali oo dhan ay ugu soo hiran lahayd. waxayna hadda ogsoonahay Soomaali inay yara kala dhowday oo ay muddo kala maqnayd. marka inay muuqaal iyo maqaam noocaas yeelatana waa loo baahan yahay. taasina wuxuu ku imanayaa marka xuquuqdeeda ay hesho oo statuskeeda la hubiyo, maqaamkeeda xag dhisme iyo xag qorsheyn magaalo iyo dhan walba way ka qurux banaanaysaa. magaalooyin fara badan oo caasimadaha dalka baa maqaadiiro ku soo habsadeen. adduunka Kaabul baa ka mid ah, Baghdad baa ka mid ah, meelo fara badan dhammaantood way soo kabanayaan. haddana meel wanaagsan bay u maraysaa inayna dalaalkaas laynaga rabaa. marka hadalkeeda ku dheeran maayo waxaan u fasaxaynaa howlwadeennada bal inay noo soo bandhigaan oo aynu galno dood caafimaad qabta
oo cilmi ku dhisan oo ixtiraamkeeda leh oo lagu tixgelinayo xuquuqda dadka degan magaalada Muqdisho marka mudane gudoomiye dhagahayaguna waa idin furan yihiin taladeena waa dhageysanaynaa insha Allah ta'ala arrintaasna waxaan ku rajo weynaa bal sanadkan dhamaadkiisa inay soo idlaato dawladda dastuurka ku soo idlaato waan mahadsantiin dhamaantiin waana furaynaa shaqada